waa dhab dalkan in meel dheer laga keenay waa dhab inaan kulligaana markhaati ka nahay waxa sabarka la yidhahdo in Soomaali ku yariya nin baa wuxuu yiri ilaahay wuxuu yiri tilka la yamnu dawla beenaas ani goortay jaariskii goorma sabar ani goorma liisiina nin ag jooga wuxuu yiri ilaahay wuxuu yiri la taqnatu min rahmatillahi rahmat ilaahi haka qoos qaadan waree iska baalka markaas midna yiri inna allaha ma'a as-sabirin inta waxa soo qaatay waxa waay wadaadu weyn oo jeegar halaada waxaan rabaa afar qodob oo isdaba yaalo chronologically isku xiga inaan taariikh dadka u yeeraa bidhaamiyo xogaayar xamar ma burburteeraan u maleynaa haddii labadii sane cali mahdi aan iska ogolaan lahayn waxaan u maleynaa haddaan cabdiqaasim dowladdiisii la ilaalin lahayn oo aan atleast mataqaanaa lagu wadi lahaa sida loogu talagalay embagati baanan fadhinin 3 sano 3 years haddii markii cabdullaahi yuusuf uu yimid iyo cali maxamed geedi iyo annagana burkaan dhinac ka qaadanay markii ayaga burkan soo baray moogtahay haddii lasu sabri lahaa 2 sano iyo bar ani casmaro ma fadhiyaan the same thing maanta waxaan soo soconnaa inaan dhiraahno war 4.5 qof kastaa ka cabaadayo war in maalin walba doorasho dadban la aado qof walbaa ka cabaadayo you never know konton iyo kowda ruux iyo boqol iyo kowda ruux ee ergada noqonayso qofkuu noqonayo ma garanaysid mar haddaada garanaynin qofkuu noqonayo iyo nooca lagu keenayo iyo siduu ku imaanayo qof doorasho kaga imaan karo kaga soo bixi karo xalaala maba jirtaba oo ku soo baxana waa ku joognaa waa ku fadhinaa maanta laakiin haddaan garanoo niri war waxaan u baahannahay in shacbiga wiilka jooga washaaqo wiilka jooga mataqaanaa raskamboni iyo wiilka jooga mataqaanaa baargaal ha u sinaadaan doorashada Soomaaliya oo codka ha wada dhiibtaan 3 milyan iyo barba xamar ku nool fiiri Mareykanka 400 oo milyan waa iyo above waxa codeeyay waad arteen oo marayna 140 milyan baa codeys qiyaas oo sanadkan kuwa ugu xog badan u yahay maanta waa iimaanaysa laana ku sheega waxaa la rabaa marka 400 milyan ma codeynin haddaan 20 milyan nahay oo 4 milyan 5 milyan dibadda naga jirto oo inta aan ku joogno haddana caruur iyo haween iyo odayaal u sii badan yihiin dad aan codeyn karin oo guryaha looga baahan inay joogaan imisa codeyn karto 1 milyan bar 2 milyan 2 milyan xamar laga heli karaaba laakiin dowladdu waxay tiri xamar ma ahe tuulo walba waa inaan gaarsiino shacabkeeda inay cod ka dhiibtaan oo seejada la geeya seeja allah ama kuure u yaqaan dadka keeyay meelaas ka yimaado meel codka lagu rido satuuq lagu rido in la sameeyo waxaa la yiri ma ogol raalli kama nihin war haddaa timeka xaliimyara ay qabatay ay tiri waxaan ku samayn karaa doorashada doctor Xaliime Ismaaciil waa gudoomiyaha guddiga doorashada madaxa bannaan ee qaranka intiina badan wada taqaanaan oo maleena haddii la rabay tiri doorashada dadban waxaan ku samayn karaa dhowr bilood toosanna okay haddii adigu qof iyo codka naftiisa 13 bilood u qaadan 14 bilood maanta waa dhamaan lahayd wax yar baa noo harsanaaba Soomaa hadda saas kaga daba jiitabeeno 2 sano ayuu dhamaanto baad arkaysaa hadda wiil doodayna marka waxaa fiican almiina kuwa nooga soo diraayo iyo kuwa noo tashanayo iyo kuwa meelaha fadhiya ka hadlaayay leh waxaan rabnaa maalin walba in ay African Union iyo Security Council-ka iyo qolo walba oo rabta international partners-ka annaga saaxiibada nala inay barnaamijka arrimaha Soomaaliya ka hadlaan hal sheer xasuusinayna arrimaha Soomaaliha loo daayo waxaan nahay member state of African Union waxaan nahay member state of United Nations sovereignty-ga ana iskale madax banaanideeda gorgortan ma gasho shacbigayga waxay u baahan yihiin ay rabaan in ay noqdaan ay kuna shaqeystaan kuna sameysmaan adigu haddaa igu kaalmeyn kartid facilitation baan kaa rabay igu kaalmay laakiin waa ku cambaareena ani gabar baan ka aroos hay cambaareena xushmada la isku leeyahay xushmaya fiican أنا عربة دل كيجي دت كيجا يديت أنا مدح بنان وعربة ولا له صاحب بديدة أقون كميرة دينيا إيماديا والله واحد برخاتي إيجان نقول إنسان نين كمان واحد في إنجليز كلو يراو على بحال كده فدي باشا إنسايتيش سوما هنا كعنت إلا كعيو قف كمان تكعنا يومدا إلى قري قاتا ورمن ليبانيو أنكو كل ليباني إيه دي بقى ديك أم إيه دعوة وأقول إلما هذا كدك وإيه إمولة حبدا وطورة وإسلام إلما أقول الشرب اللي قد لي أفر بين لفة إذا بضحك قدر فن دورة إلما هسرجر إن نقول دوران
ظلميgaas إلهي سبحانه وتعالى مرنا ميل ما dhigayo marna meel bari waa isnaqaana madaxdeena qaranka madaxdaanadii bay ahaayeen shalay bay ahaayeen biri buu ilaahay ka dhigi karaa irsaaqada rabbi baa bixiyo subxaanahu wa tacaala jagada adigu ma keensan kartid ilaah baa bixiyo ku sabar inuu ilaahay bixiyo aniga cali waxaan ugu dubaysay baasha 18 sano doon iska sabrayna ula qaadanana ay waa dilayna ma dhiyo dheed mogtaadi wasiir mani ula qaadanana wala laga ma baqal waxaan leenahay war sabarno sabarka wax noo keenaye quruxdana haysaaro quruxdan heli karo waxaan uga baahnaa qori qaato ama caligeedu maanta qori qaato anu ma garanayo laakiin hal shay waa laga maarmaan dadka maadiyana cilmigana bartay diintana yaqaano haddana dhahayo dalka waa inuu dagaal galaa ilmihiina meesha jooga waa taqaanaan xaasaskiina meesha jooga waa taqaanaan adigu haddaa dhaawac noqoto diyaarada lagu saaraa waa baxe haddii kan marka horeba cararaysaaba wax isku baaba'ayana waxaa waaye meeshan guriga saan u qurux badan ee maanta aan ku jirno berri laguma jiraayo waxaa gaargacmeeda lagu dhex gadaa dhexdiisa waa idiin sheegaa waan naqaan hore u naqaan way dhacday shalay dhacday berri bay dhacaysaa joojiya ha laga joojiyo ummadda in maanta loo horseedo in xabad loo qaato ma rabtaa inaad jaga qabato gudoomiye madaxweyne noqotid waa mar kursi waxay madaxweyne maartaa war 2 sano haysataaye mikrofon qaadee raaskamboni kasoo bilaab waxaa uga baxdaa badarbeyle maalin walba dal campaign gal haddaba nagu bilaab baashaba qaado abeel cadaabta laakiin campaign ma galayo fadhiga inaan ku qaato waxaaba soo wadaa baarlamaanka ma jiraa tiraadeen waxaan soo wadaa madaxweyne ban noqonayo niman vetting lagu sameyn vetting ingiriis waxaa lagu dhahaa nin aan la baarin oo sidii maxaa dhihi jiray midgu maxay dhahaan futeer dabadeeda koraa loo qadaa may dhihi jiray baa soomaaliya ma garanayo ilaa la kala fiiqo oo la caddeeyo ninkan tuug miyuu ahaa mise ma aha waa inaan caddeynaa dadaa guryo ka dhistay meeshan dadaa habeen keliya 10 milyan 15 milyan bixiyey ma qaadan karno inaan haddana aad tiraahdo waxa usoo noqonaa lacagtaas inaan qaato mar labaad oo haddana ummadda aan kula dagaalamo hada ma haysi ma soconayso ma ogolaanaynaa Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.